asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada mar labaad rajada bulshada soomaaliyeed iyo koorsigeeniya h t m l 5 haddaba si aad h t m l u baratid ama aad u koodhin garaysid ama aad u samaysid websiteyada ama webpagesyada kala duwan maxaad u baahan tahay requirementiga ugu horeeya maxay yihiin kuwa basiga ah iyo waxa kale h t m l-ka si aad u samaysaad u baahan tahay marka ugu horeyso requirement-iyada ugu horeeyo waxaa ka mid ah waa fahanka operating systemka adiga aad isticmaalaysid laptopkaad aad ku isticmaalaysid tusaale ahaan haddaad isticmaashid windows 7 8 iyo 10 baa jiro ugu caansan sidoo kale linux haddaa isticmaashid waa inaad fahansanaataa qaababkii adiga aad u isticmaali lahayd haddaadan aqoon adiga laptopkaagii sida loo isticmaalo taasi way adkaanaya markaa inaad h t m l aad ku koodhin garaysid haddaba sidaa awgeed tusaale ahaan haddaad isticmaashid linux waxaa ugu caansan waa ubuntu iyo kali okay haddaba mac haddaa isticmaashidna kolley waa inaad fahansanaataa qaababkii loo isticmaali lahaa okay waa inaad ku fiicnaataa isticmaalkoodii waa inaad fahansanaataa samaynta folderada iyo file wax loo yaqaano file muxuu yahay file waa fail nuucu raba ha ahaado way ku kala duwan yihiin sida halkaa ku xusan waa inaad fahansanaataa kala duwanaanshaha okay filesyada tusaale ahaan text.txt haddaad haysatid taas waxay caddaynaysaa inaad ku guda jirtid text file waa midka anaga haddaan ku guda jirno wixii isla waqtigii aan edit garayn karno waxaan ka bedeli karno b d f haddaad haystidna waa mid la akhriyo ee markaa wax laguma dhex qoro haddii b n g ama g b g ama jbeg hadduu yahayna waa mid sabir ah sidoo kale mp4 ama ma4 ama move hadduu yahayna waa mid muuqaal ah haddii extension filekiisa hadduu yahay test.mp3 taasi waxay caddaynaysaa inaad isticmaalaysid ama fileka inuu yahay noociisii mid maqal ah oo wax laga dhagaysto haddaba xusuus anaga waxaan isticmaali doonaa waxaa loo yaqaanaa waa extension fileka waa inuu noqdaa waxa loo yaqaano .html okay dot ama period baa loo yaqaanaa calaamadda dhibicda midaasi baan ka hadlayaa ama full stop hadaad u taqaanidna waa iska caadi laakiin .html okay taasoo markaa caddaynaysa fileka inuu yahay mid html file ah sidoo kale waxaan u baahannahay wax loo yaqaano tifaftire ama editoradu way badan yihiin laptopyada lagu keeno waxaa ka mid ah waa notepad ama notepad plus plus oo midka anaga haddaan isticmaalin oo kale laakiin anaga waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaano vs code taasoo laga soo gaabiyey visual studio code ee ma ahan visual studio 15 ama 16 ama 19 haddaba casharka ku xig waxaan ka hadli doonaa waa html keenii sidaa iyo nabadgelyo